عرفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا. بسم الله، الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه wuxuu saaxiib dhow la ahaa nabiga sala allahu calayhi wasalam. xilliga iftiinka iyo nuurka diinteenna quruxda badan nabiga sala allahu calayhi wasalam loo waxyaanin ka hor wuxuu ahaa abubakar mid ka agdhow nabiga sala allahu calayhi wasalam, sababtoo ah wuxuu ku yaqaanay saadiqul amiin, mid run badan, mid ammaano badan, mid wanaag badan, ummaddiisa ay jecel yihiin. abubakarna sifooyin wanaagsan buu lahaa islaamid ka hor. lidaalika labadaasi sifooyin oo wanaagsanaa baa nabi sal slam iyo abubakar isku keentay. markii xaqa iyo diinta iyo waxii nabi sal slam loo waxyoodayne qofka ugu horeeyay soo islaamay wuxuu noqday abubakar, sababtoo ah saaxiibkiisa wanaagsan wuxuu ku yaqaan dhaqan wanaagsan iyo run iyo daacad iyo weji qurux badan oo aan been marna sheegi karin. lidaalika xaqa marna kama leexan, isla markiiba wuu aqbalay. lidaalika fiiri qofka la saaxiibaysid, sababtoo saaxiibka ku soo jiidanaya. abubakar waxaa soo jiitay saaxiibka wanaagsan oo ah nabiga sala allahu calayhi wasalam. wuxuu ku soo jiiday xaqa iyo hanuunka iyo iftiinka iyo nuurka iyo wax walba qurux badan. saaxiibtinimadooda waxay isku badashay waxay tahay ilaa nabiga sala allahu calayhi wasalam uu ka guursado gabadha abubakar sadiiq oo ah hooyadiina أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عنهم أجمعين صحابة أردن إلهي سبحانه وتعالى والضضوضة. أنا مرسيو تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا. هدي أتسفي عن وفير ستت نبي صلى الله عليه وسلم نولشيسا ينولش أبو بكر وحد أركيسا معناها ربط حقيقة إلا وضع صاحبات لو باهي هاي إني أول نولادان. xilliga barwaaqada, xilliga gaajada, xilliga dhibaatadii wixii la mid ah. waxa dhacda waxay tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam markii ummadda la dhibaateeyay, la qahariyay, la dulmiyay inay hijroodaan ardul xabasha oo hijroodeen, kadib madiina oo hijroodeen. abubakar nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka idin qaatay inuu asagan hijroodo, madiina uu hijroodo. kadib nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay la'alla allah waxa laga yaabaa ilaahay inuu aniga saaxiib iga dhige oo ani aad isla hijroone usug. abubakar niyad ayuu ka farxay. as-suhbatu ya rasuulallah, taas ayaan rajeynayaa saaxiibtinimo inaan israacno, aan isla safarno. kadib waxay leedahay asmaa radiyallahu anha wa ardaaha nabi sallallahu alayhi wasallam ayaa xilli uusan imaan jirin gurigiina ayuu yimid. kadib abubakar ayuu la hadlayaa, kula joogo qofne ehelka kaliya ee la joogo. kadib wuxuu ku dhahay ilaahay wuxuu noo idmaday na amray inaan isla hijroono. as-suhbatu ya rasuulallah, maan ku raacayaa? haa, waad i raacaysaa. asmaa waxay leedahay abubakar waxana radiyallahu anhu aabaheyga asigoo oonayo maanan ogaan jirin qof inuu u ooyin karo farxad awgiisa. abubakar wuxuu u ooynayaa waxay tahay farxad inuu raacayo nabiga sala allahu calayhi wasallam ula hijroonayo. marka sidaasi dhacday, nabiga sallallahu alayhi wasallam isla baxeen. ehelka abubakar waxay taagnaayeen xaalad ugu quruxda badan ee labada saaxiibood sida ugu karaameyn lahaayeen. asmaa, caamir, gabdhihii, wiilashii, cabdiraxmaan, abubakar, kulli ilmihii abubakar radiallahu canhu waxay isku howleen maadaama la raadsanayay abubakar iyo nabi sal salam la ogaaday, la maqlay inay isla hijroodeen. gaaladii quraysh waxay qofkii nabi maxamed arko anaa keeno waxaa u ballan qaaday halahaasi irati, halahaasi geel, halahaasa u ballan qaaday, halahaas boqol halaad kana u ballan qaadaynaa. markay sidaasi dhaheen qof walba wuxuu ku mashquulsanaa inuu nabi sal slam raadiyo, inuu nabi abubakar raadiyo iyo wix la mid ah. intay joogeen aaway safarka hijrada ma ogeyn qofne ilaa cali bin abi aalib iyo reerka qoyska abubakar radiallahu canhu arda bes. lagaal dambo way maqleen gaaladii. waxaa dhacda waxay tahay in qoyska wanaagsan abubakar ay dhexda dhuuqsadeen, ay u dhuuqsadeen si u badbaadin lahaayeen nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo aabahooda abubakar radiallahu canhu ardaa. nabiga iyo abubakar markii ay godka galeen
waxaa dhici jirtay maadaama dhul saxara uu yahay, dhulka saxarada qof haddii la maro ama faras uu maro ama farda lagu maro ama lug lagu maro, raadka la arkaa, raadka dhulka la maray. waxaa la ogaanaa meeshaas in la maray. gaalada way u fududaanaysaa inay helaan yani dadka meeshaasi maray iyo in la maray, kadib way dabagalayaan, way qabanayaan. muxuu samayn jiray Camr bin Fuhayra uu shaqayn jiray Abubakar radiyallahu anhu wardaa, saxaabiga jaliilka ah, in habeenkii iyo xiliyada intuu soo marsi inuu ariga maxaa dhihi jiray soo daajiyo iyo wixii la mid ah, raadka nabiga iyo Abubakar ayuu tirtiri jiray. ari badan markii ma yaraan raadku baabaa, bal fiir muxuu u baabi'inayaa si aan loo arkin. Abubakar godka ayuu galaya, wuu nadiifinaya, rasuul ilaahi sug anaa gelaya, wuu nadiifinaya godka markuu ku jiray. gaaladii baa koomeeraysa, agtooda ay imaanayaan, waxay ku sugan inay arkaan. ilaahay baa ciidan usoo diraya aan la arki karin. kadib Abubakar wuxuu ku dhahay, waxay rasuul ilaahayow, hadduu midkooda uu fiirin lahaa lugihiisa hoostiisa uuna arki lahaa. ilaahay aayada buu soo dejiyey oo ku ammaanaya Abubakar radiyallahu anhu, lagu ammaanayo magaciisa qur'aanka, lagu ammaanayo la jirkiisa nabiga sallallahu alayhi wasallam. ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لوذي قفوت كنت كجري. الله أكبر. لو أمان نبي أصيغ رضي الله عنه وأرضاه إذ يقول لصاحبه صاحب كيزا وأبو بكر نبي وكله هدون أكلها نبي أحسن حوجاوي لا تحزن أبو بكر هبقن هاول ولن عبسي كجلن أنا كل صعود قرب كاربا كل صعود إن الله معنا إلهنا سبحانه وتعالى مع يديسا أيا كون نقد واشن نإلى عليا نحفدنا نجبت بعدين نجرت كيدك قال ذا ودجنا يا صاحبك ونكسن إلهي بوكو حريا صاحبك ونكسن قلبي أبو دجنا إلهي بوكو حريا. الله أكبر. وأبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر دنا وحوليه ما كان كجرنا جودك وحان أركي يعني نين أرجيز ماش كدا جنية وعم بحي وحاول يستين ونسينكرو عانو يعني بو عن لسي وإسيي كدي النبي صلى الله عليه وسلم أيان أجي وعوي حتى رضيت إلا غالي عن كان قضي نيدي عيدكتي محين نيدي سكدريسا النبي صلى الله عليه وسلم يعني درجي أنا سيفي عن وعوي هذا نوي بحيان قلت كسي بحن وحي أتجن إسلام عجيب بدن صحابيتها أيضا كذلك سو إسلامي دونتو معبد وحي ويديستين إني وحسي إيسيسو يعني عنو إيراشين يحب ما دام ذاك سفرك ماله مري جيران أو يعني أي كقادن جيران ذات أي أما وحكة أو كعوانم كعنا يبيح لمده وحنا ما هاي أنا متعسم محور أرياسي يعني كبرن وحنا أرياسي وجريني هاي ملس مايو أنا كمصعد يبيح لمده نعسم محولي أم معبدي مي أوجل أتأذن لي مي أوجلانيسا هذا تفيرية مي أوجلانيسا إن أرياس أن وحكة لسه وحنا ها لسه دارت لكن واحد ممكن يجيب أصاب تعبانة هبو أصاب جيسية أصاب يعني فقد كذا معطي نعسميت أرجع صلاحي وبركي لسه رضي الله عنه وارضاه. أبو بكر بقولي بيعنا عبوا لي أبو بكر عليه ما يأذي عب يا رسول الله نبي وعوية صلى الله عليه وسلم هذا نعب أبو بكر ما يأذي عب نبي وعوية صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعب ما يأذي عب أبو بكر وحولي هاي ما كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أسوي عوية ويدينا يو حتى تويت إلا أنا جبان درجي يعني أنا أنا عاون وحن كل درجي صاحب كي النبي صلى الله عليه وسلم عبيد وعوي أنا بل جعل وحبي وجعل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل صاحب كيسا النبي صلى الله عليه وسلم حولي جرى وحيتاي إيه ده فصاحب كي فهل أنتم تاركوا لي يعني صاحبي ما إيدا في سن صاحب كي يودي جري صلى الله عليه وسلم وحوها صاحب كان النبي صلى الله عليه وسلم وحونا بغي جعلك صاحبك وجعل ياي صاحب كيسا وحونا بغي صاحبك ونكسن إنا سميستد سئو وناقي خيرك قوتصو صاحب أدي كاسر منزلت صاحب أدي تساقون قنكرا يوحي لمده أن يشنا صاحب ونكسن سنو لشينا إيوها يكسناتو إلهي كرال النقضون يعني أبو بكر رضي الله عنه وحوها صاحبك النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلهي أودوني ما كون نبي سعصاب لنتي أبو بكر أودنتي إني اسكو قرب هل ميل
lagu duugo maxaa ka wanaagsan ilaahay wuu oofiyey saaxiibtinimada abubakar radi allahu canhu wa ardaah noloshiisa wuxuu saaxiib la ahaa nabiga sala allahu calayhi wasalam xilliga uu geeriyooday wuxuu saaxiib la ahaa nabiga sal ly salam isku meel hal meel jambigiisa dhinaciisa ayaa lagu duugay abubakar maxaa ka kheyr badan maxaa ka qiim badan in nabiga agtiisa lagu duugay saaxiibkiisa adduunyo saaxiibkiisa aakhiro ilaahayona marsi wadada ay mareen saxaabada akhyaarta nabiga sala allahu calayhi wasalam naga mid dhig kuwa maalinta qiyaamo aad macooda ku xajrasid sala allahu calayhi wasalam jazaakum allahu khayra ilahay subxana wataala idin xifdiyo saaxiibo wanaagsan ha idin yeelo خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا